الكون الذي حار ونرسل العطر من روض المنزاه ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalayaal adduunka meel aad ka joogtaanba waxaan hawada idiin soo marinayaa salaan aad iyo aad qaali u ah, gaar ahaan tv-gan qaranka qeybtiisa waddanka Canada magaalada Toronto ayaan si gooni ah aan hawada salaan ugu marinayaa oo igu marti qaaday anigoo marti ah. ama mawduuca aan doonayo inaan idinla wadaago waa mawduucaadii aad u macaan, waa mawduucaadii aad u qiimo badan, waa mawduuc qalbigaygu aad ugu faraxsan yahay markii aan ka hadlayo. maxaa yeelay waa mawduuc ummadayda khuseeya, ummadayda Soomaaliyeed ayuu khuseeyaa. waa mawduuc khuseeya ragga waaweyn iyo dumarka iyo siyaasiyiinta iyo maalqabeennada iyo culummada iyo ducaadda iyo qofka shaqaalaha ah, midka ugu sarreeya iyo midka ugu hooseeya. mawduuc khuseeya ayaan doonayaa inaan maanta idiin soo bandhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. mawduuca talow magicii maxay kula tahay? mawduuca maanta aan ka hadli doono waa mawduuc qalbigaaga xidhiidh la leh, oo indhahaaga xidhiidh la leh, oo dhegahaaga xidhiidh la leh, oo jirkaaga xidhiidh la leh, oo cumrigaaga xidhiidh la leh, oo liibaantaada xidhiidh la leh, sacaadadaada xidhiidh la leh, farxaddaada xidhiidh la leh. mawduuca waxaa la yidhahdaa sideen oo u helaa lamaano wanaagsan, sideen u noqon karaa lamaano ku nool raaxo adduunyada, aakharana biidni illaahi tabaaraka wa tacaala jannada isku gala. mawduuca waxaan doonayaa inaan qaab ooga hadlo dhowr qodobo inaan ooga hadlo. aan doonaya inaan soo khulaaseeyo. isku day marka dhegaysto inaad aad iila socoto, inay ku anfacdo ayaan rajaynaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. awalan, qodobka koobaad, lamaanuhu waxaa la doonayaa inay si wanaagsan isu doortaan. qofka reer baadiyihii goorta uu doonayo inuu xoolo u sahmiyo ama reerka u sahmiyo, yacni wuxuu u raadiyaa meel degaan leh oo aan qaniin lahayn, oo aan abaar ahayn, oo aan oomano ahayn. wuxuu degaan oga raadiyaa reerkiisa, waayo waa jecel yahay, xoolihiisa, waayo waa jecel yahay. meel raaxo badan oo biyo leh ayuu u raadiyaa. maxaad u malaynaysaa marka? lamaanuhu waa mustaqbalkii, waa cumrigooda inta ka hadhay siday u wada noolaan lahaayeen. idan sahan baan u baahannahay. qodobka koobaad, saasuu nabigeennuna baray sala allahu calayhi wasalama. haweenka 4 nooc baa loo guursadaa, 4 qaab. qurux rag baa ku doorta, war quruxdu way dhammaani. xoolo rag baa ku doorta, war xooluhu way dhammaani. qoys wanaagsan bay ka dhalatay, in la colloobaaba laga yaabaa. laakiin midda diinta la dooro. qodob gooni ana waan oga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. gabadhana waxaan leenahay ragga waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. hadday ragow idin yimaadaan dad akhlaaq iyo diin leh, gabdhihiinna ha u diidina. waa reer hebel ha ugu diidina, waxba ma haysto ha ugu diidina. diinta iyo akhlaaqdu ayadaa xoolo ah, ayadaa farwo ah, ayadaa raaxo ah. qodob baan kaga hadli doonaa mar kale insha allah haddii alla yidhaahdo. qodobka horta waa qodobka koobaad oo raaxada guriga ka qayb qaadanaya, oo anna waan sahmiyey, adiguna waa sahmisay. idan dhul dooxa ah oo degaan leh, oo aan qaniin lahayn, oo aan colaad lahayn, oo biyo leh, oo barwaaqo leh, oo roobka uu korka samada kaga keenay, dhulkina uu biyihii aqbalay, kadibna doog iyo daaq, dad iyo duunyo ay ku doogsadaan soo saaray ayaan u guuraynaa aniga adiga. haddaba waan israacaynaa ogow, halkaasaan geedi u nahay ogow, waayo waa soo sahmisay, anigana waan soo sahmiyey. qodobka labaad oo muhiimka ah waa annadar,
waa in labada qof waa inuu midba midka kale iska fiiriyo. maxaa yeelay nabigeenna wuxuuna barayaa sala allahu alayhi wa alihi wasalama aragtidaasi inay noqon karto aragtida noloshu ay ku daa'imi karto, si uusan qofka kale markii guriga loogu keeno uusan oola yaabin oo uusan u dhihin nacam arrinkaa waa muhiim. ogaada in lays eego wejiga qofka kale wejigiisa eego oo horta uu ku qanco. halkaa waxaa iigu jira baab la yidhahdo baabu shukaansi iyo baab la yidhahdo baabu xodxodasho. si khaldan baa hadda wax loo shukaansadaa, si khaldan baa wax loo xodxotaa, been baa inta badan laysu sheegaa. walidaalika ayaa hadhowta waxaa dhici doonta qodob hadda ka hor aan ka hadloo la yidhaahdo saa kuuma haysanin, saa kuuma malaynaynin. wiilkii wuxuu leeyahay markuu gabadha shukaansanayo, annagu geesiyiin baan nahay, maalqabeenna ayaanu nahay, boqorriyo ugaasyaan ka soo jeednaa, dadka dhan baabana yaqaana mid dhow iyo mid dheer, gacantayadu way iska furantao dumarka waxbaba ooma xisaabno, waan ku kallarayni oo waan ku casayni oo faa waan ku siini oo bunni baan kaa dhigi, qof saa u taagan oo cajaa'ib badan baan kaa dhigi. gabadhuna waxay leedahay aniga maxaad iga taqaanaa, waxaanu dad hooyo marwa'a baa i dhashay, aabba la yaqaana ayaa i dhalay, gabadh waxaanahay adduunka ma u malaynayo gabadh iga gaarisan inay adduunka jiri doonto. cuntadayda aad cunto, cuntada aad cuni doonto waxaad ka shikin doontaa talow ma sokor baa lagu daray, ma sonkor baa lagu daray, ma malab baa lagu daray ayaad ka shikin doontaa. waaba nala yaqaanaaba annaga. hase yeeshee markii laysu imaado oo gurigii layskugu imaado si kale ayaa la noqdaa. idan shukaansiga yaan been laga sheegin ee run iyo xaqiiqaha laga sheego. qodobka kale oo raaxada lamaanaha aan u bixinay waa alsamcu waataaca, waa labada qof inay ismaqlaan. alrijaalu qawaamuun cala annisaa, ninku asagaa oday ah, asagaa hoggaanka haya, gaadhiga hal darawal baa wada, diyaaradda maxaa leeya markabka. waxaad ogaataan ilaahayga abuuray koonkan, gabar yahay ku abuuray, ninkana abuuray, dabeicaddiinana kala yaqaana, asagaa ninka hoggaanka u dhiibay. maxaa hoggaanka loogu dhiibay? reerku inay raaxadiisu ay sii daa'imto. waa ilaa haweenku way caatifo badan yihiin. laba mid weeye, in laguu dhiibi lahaa iyo in asaga loo dhiibo iyo in laydiin wada dhiibo. suurtagal ma in laydiin wada dhiibo. haddii qof loo dhiibi lahaa rabbi baa u doortay, xakiim weeye, asagana garanaya meesha ku habboon. idan alsamcu wataaca, gabadhu marka waa inay zawjkeeda ateecdo. ninka laftiisu ragga qaar baa khalad ka fahma, yacni ma aha macnaheedu haweenka inaan la maqal. haweenka qodob baan kaga hadli doonaa, sida loo wada tashanayo ee guriga looga wada hadlayo, go-aanka sida loo qaadanayo gadaal baan kaga hadli doonaa. laakiin ma doonaysaan qoys wanaagsan inaad noqotaan, usra saciida inaad noqotaan, lamaano wanaagsan inaad noqotaan, maa sha allah ma doonaysaan? waa inaad is ateecdaan, waa inaad ismaqashaan, waa inaad is ixtiraamtaan. qodob baan kaga hadli doonaa isagana ixtiraamka. idan alsamcu waataaca, khaasatan haweenaydu inay ninkeeda u hoggaansanto waxaan macsi ahayn. saasuuna nebi moxamedna baray sal slam. laba nin isma qabi karaan, laba nin isma qabi karaan. waxa isqabi karaa waa lab iyo dhadig. saasuuna ilaahay noogu talagalay tabaaraka wa tacaala. gabadhu marka waa inay dowrkaa garato alsamcu waataaca. qodobka shanaad oo raaxada guurka lamaanaha lagu gaadho waa alibtisaamatu walkalimatu tayiba. maxaa kuu diiday? muusood guryaheenna waxa ka maqan wey, in laysu dhoo la caddeeyo. horta ma og tahay inay sadaqo tahay? ibtisaamadu waa sadaqa. wallahi ajir baa lagaaga qoraya, ilahay agtiisaa lagaaga qoraya. ciddaad u qoslaysa waayo waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga, sharaf waa adiga, indhahayga midda u ron waa adiga, hadalkayga midda u macaan waa adiga, naftayda middaan ku aaminay waa adiga, jirkayga middaan ku aaminay waa adiga, reerkayga middaan oga soo tegay waa adiga. yaa waa qofkaad u qoslayso? waa ninka intaad ragoo dhan soo dhex martay aad tidhi adiga raganimo adigay kugu dhan tahay. ninkaa qurux badan oo kaa halyeysan oo kaa sharaf badan oo kaa raganimo badan
dumar oo dhan baan kaaga soo dhex baxay, reerkanagii baan kaaga soo tegey, hooye macaan baan kaaga soo tegey. idan labadiinna xaq isu leh inaad isu muusotaan ood isu qosashaan, weliba muusood run ahoo dhab ah. sidoo kale muusoodka waxaa dheer alkelimatu alxulwa, kelimada macaan, xabiibtii. in badan oo ragga iyo dumarkeenna ka mida isma dhahaan. raggu waxay raba inay dhahaan, waraba tii carruurta dhashay, war tii awey maxaa la yidhahdaa, awey tii sidan ahayd, awey islaantii reerkan ahayd, awey ya akhi maxaa kugu diiday inaad dhahdo awey saaxiibtay, awey sidiiqdaydii, awey xabiibtaydii. yaa caa'ish buu nabigu ku dhihi jira, caaisha magac oola bax haweenaydaada ma garan. sir baan rabaa inaan kuu sheega maanta, waayo mafaatiix badan baan bixinaynaa maanta. ninka ka faa'idaysta ballan waxaad arki doontaa inaad noolal cajaa'iba ku noolaato. laakiin hal iga ballan qaad, ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. inaad isbeddesho ayaa lagaa doonaya adu. marka noloshaada bedel oo ibtisaamada la imow, kelimada macaanna la imow. kelimada macaan magacoola bax xaaskaaga, ayna cid kale kuu aqoonin. yaa magac inaad oola baxdo marka ay magacaa maqasho ay farxayso. gabadhya ninkaaga magac oola bax oo u bixi markuu maqlo uu farxayo. carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isjeceshihiin. carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isku soo dhowaateen. carruurtu markay maqlaan ay leeyihiin allah allah, yaa aniga tolow aabbahay oo kale ma heli doonaa. ay gabadhi leedahay, ninka i guursan doona tolow aabbahay oo kale ma noqon doonaa. ha wiilkii uu leeyahay allah talow aniga hooyaday oo kale gabadh u dhiganta ma heli doonaa. fartu dhexda uu ka qaniinaya. soo cajaa'ib ma aha? waa waxyaa badan weye. idan kelimada macaan iyo hadalka macaan iyo ibtisaamka iyo dhoolla caddayntu waana sadaqa, quluubtiinana way isku soo dhowaanaysaa. qodobka lixaad ashukr. horta shukri ilaahay baa leh oo mahad ilaahay baa leh. laakiin nabigeenna dhegayso sala allahu alay wasalama, man laa yashkur innaas laa yashkur illaah. qofka aan bini aadamka wanaagga u sameeyey aan u mahad celinin, rabbiga abuurtayna uma mahad celiyo. allahu akbar. u fiirso, seena oogu mahad celinaynin. shukran, waad mahadsan tahay. way maanta guryaheennu, yacni guryaheennu waxyaabahay la dumeen waxaa ka mida yacni in kelimadaa la waayey, waad mahadsan tahay. yacni guriga u fiir, tusaalaan ku siinayaa. ninkaan tusaale gabadhaan rabaa ninka inaan tusaale gabadha u siiyo. maalan ninkii baa maanta baxay, aan ku hormariyo gabadha, kadibna gabadhii gurigay kuu hagaajisay. allahu akbar. guri nadiifa bay kuu diyaarisay, sariir cajaa'ib badan bay kuu diyaarisay, lidaraja hadduu gurigaa daksi soo galo 6 biloodoo xadhiga bay u jaraysaa daksiga.